aan soo galo Kenya iyo waxyaabaha wargeysada waaweyn waxoogaa waqtigaana hayaa kun aan cukaash bal wargeyska standard inoo soo saar shaashada horta daawadayaal kale waxaa lagu wadaa 9 subaxnimo maanta in shirweyne oo xisbiga Jubilee shirkaasi oo maaragtay ay ka kooban yihiin dhammaan xildhibaanada baarlamaanka ma aha kuwa senatka kuwa baarlamaanka ayaa lagu wadaa in ay ku wada kulmaan guriga madaxtooyada waxaad moodaa wargeyska standard sidoo hadalka u dhigaayo dabcan sawirkaasi waa mudane aadan barre ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka sidoo kalena maaragtay ah xildhibaanka ka soo galo magaalada Gaarisa oo runtii maaragtay dad badan oo shacabka dalkan ku nool aad ula dhacsan hawshiisa sidoo u wado يعني isagoo ah majority leader dad badan ayaa difaacay maalin dhaweed ay ahayd markii uu garyaqaan sare Axmed Naasir Cabdullaahi bartiisa Twitterka ku soo qoray raggan la sheegayo la rabo in lagu bedelo aadan barre ducaale qaar waa iska maaragtay yani maaragtay xitaa bisada wax ma dhaamaan iyo maaragtay dad wax lagu aamini karo ma aha marka kulli dad badan ayaa wax isku raaceen wax qabadka maaragtay aadan barre ducaale sidoo kale waxaa aad maaragtay u amaanay aadan barre ducaale ku xigeenka xisbiga Jubilee David Murade oo inta badan lagu tilmaamo in uu madaxweynaha aad ugu dhagan ugu leeyahay marka wuxuu yiri aadan barre ducaale kale anigu as David Murade waxaan aaminsanahay in uu yahay qof hawshiisa yaqaano qof difaaco danaha xisbiga sidoo kale daacad u ah madaxweynaha balse wargeyska standard ayaa wuxuu dhigayaa ila ay soo xiganayeen oo dad sarsare oo ku howlan dadka shaqada laga saari doono maanta ayaa wargeyska standard hadalka sidoo u dhigaayo ayaa wuxuu dhigayaa in waxay u badan tahay aadan barre ducaale in uu bedelo Amos Kimunya oo ah xildhibaanka Kipipiri hadda ka warna soo ahaan jiray wasiirka maaragtay maaliyadda xiligi maaragtay Kibaki sidoo kale waxaa lagu wadaa ninka maaragtay nidaamka baarlamaanka u weyn ama chief whip-ka loo yaqaano Benjamin Washiali oo ka yimaado maaragtay Western Kenya galbeedka waxaa laga yaabaa inuu bedelo Nakhavolo MP-ga ka soo galo Nakhavolo oo la yiraahdo Emmanuel Wangwe sidoo kale markii loo yimaado guddiga u xil saaran miisaaniyadda yani budget committee waxaa dirtan madax u ah maaragtay Kimani Ichung'wah oo MP-ga Kikuyu weeyaan oo maaragtay aad iyo aad ugu dhow ku xigeenka madaxweynaha marka waxaa lagu wadaa sida wargeyska uu dhigayo Kanini Kega in uu bedelo oo isagana xildhibaana marka ku xigeenka aadan barre ducaale waa gabar la yiraahdo Cecilia Mbarire iyadana waxaa lagu wadaa in uu bedelo nin la yiraahdo Maoka Maore oo Meru ka soo jeedo wargeyska standard ayaa wuxuu leeyahay markii ugu horeysay Raila Odinga wuxuu rabay ama wuxuu doonay Maoka Maore maadaama uu yahay nin Meru ah in loo dhiibo xilka uu hadartan aadan barre ducaale hayo oo ah hogaamiye aqlabiyada baarlamaanka si lagu sasabo reer Meru marka kulay sidoo noqon doonto ilaahay baa og laakiin dabcan kulay anaka hadaanu Soomaalinahay saxaafad Soomaali hadaan nahay dabcan kulay waxaan dareemaynaa in mudane aadan barre ducaale uu yahay qof yaqaano cadkiisa sida loo soo goosto qof codkar inuu yahay aniga horta shakhsi ahaan as cabdi khayr baan u rajaynayaa laakiin cabdi marka aan fiirino aadan barre ducaale si fiican toddobaadii la soo dhaafay waxa aad loo hadalhayay xisbiga Jubilee gudihiisa in aadan barre ay abaal badan u hayaan oo danaha xisbiga oo aad uga shaqeeyo in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo xisbiga iyo guud ahaan daacadaha markii la wada jiray sida David Murado oo kale gudoomiyaha xisbiga Jubilee waa kan ku doodaya ninkan danaheena uu qabtaa talooyinka madaxweynaha uu fuliyaa waxba yaan laga doonin aadan barre ma waxaan dhihi karaa kaliya mar hadii danaha xisbiga in uu qabto lagu doodayo waxa kursigiisa ku ay karo madaxweyne ku xigeenku saaxiib leeyahay hadafka meesha ku jiro ayaa wuxuu yahay dadka sidii hadalka u dhigayaan dadka rabo aadan barre in uu meesha ka baxo waa dadka ku candacoonayo maadaama haddii aan isbedel ku samaynayno maadaama haddii aan cagta ku dhufanayno wax alaale wixii ku xigeenka madaxweynaha la halmaali jiray kulligood ha baxaan hal mar aan isla tuuro oh yes saas sheegayna meesha markaan fiirino
maanta haddii ay dhacday in aadan barre xilka laga qaado oo majority leader ama hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka laga qaado aadan barre loo dhiibo rag kaleeto maamulkii hoose isbedelka intaa le gudihii baarlamaanku ka dhaco senatarkana aan ogeyn xisbigii Jubilee maxaa ka soo dhaxbixi kara wallahi horta fiiri xisbigan Jubilee maxaa ka soo dhaxbixi kara xisbigan Jubilee horta xisbi tegay weeyaan anigu saan aaminsanahay ma aha maaragtay xisbi la dhihi karo in magacaas hadana doorashada soo socoto lagu gali doono laakiin su'aasha meesha ku jirta waxay tahay anaka haddaanu nahay reeguura haddaanu nahay maaragtay Soomaali weyn mudane aadan barre ducaale lacala haddii meeshaas laga qaado sida wargeyska The Standard uu maaragtay saadaalinayo tolow anaka maxaa noo yaala Jubilee maxayna siin doontaa soo garta ma marka waxaad moodaa hadda korba hadal ku tiri kuteen ayaa jiray in Safiya Cabdi Nuur oo ah maaragtay gabadha ka soo gasho ijaara in loo dhiibi doono xil may deputy chief whip in loo dhiibi doono marka kulley nidaamyaha xisbiga Jubilee gudaha baarlamaanka marka lacala isbedelkan hadduu dhaco ee noqoto meesha in mudane aadan laga qaado weli waxaan aaminsanahay Soomaali meel baan ka muqnaani doona laakiin ma aha maaragtay meeshii weynaa uu cadka si fiican uga soo goosan jiray danaha maaragtay shacabka Soomaaliyeed marka loo fiiriyo cadda qadrado soo koobaya aadan barre haddii xilka laga qaado qof Soomaali aan loo dhiibin maanta Soomaaliduna ay aaminsaneed kursi weyn ee wadanka ku leeyihiin oo halkaas macnuhu ma wuxuu noqon doonaa markii horeba Soomaali dan badan laga ma lahayn waxa weeye waa lagu danaysan hayay aadan barrana dantiisu meesha uu joogay dan Soomaaliyeed meesha looma geenine xisbigiisa keensaday iyo Ruuti iyo Uhuru mise waxay noqon doontaa Soomaalidu way ka dhidhii doonaan oo talo waxay dhihi doonaan annaga waxa weeye kursi baan lan kursiga anagina waa laga qaado horta deegaanada kale ee wadanka sidan oo kale qof weyn marka xilka laga qaado inta badan waxa la isku dayaa in positionka la buuxiyo iyaga loo tuso in wax loo hayo ama xisbigan wax loo hayo haddii aadan laga qaado meeshaas runtii waxa la isdhihi karaa xisbiga muxuu ka damacsan yahay deegaankaas muxuu ka damacsan mise aadan tan xilkan haddii laga qaado meel kaloo fiican meesha la eg ayaa loo wada isaga laftiisu meel kale loo wada marka lama ogaan karo oo lama saadaaleyn karo waxay noqon karto laakiin xilka qaadistiisu waxay muujinaysaa nin shaqadiisii ka soo baxay xisbigii howlkar ku ahaa siyaasadda wadanka ahaa nin saameyn la ahaa in laga qaado without reason laga qaado taa waa arrin mugdi ah laakiin waxaa isleeyahay kama hor dhacin waxaa laga yaabaa in isbedel kale weyn u imaado kastoo xisbiga wax lama oo challenge gareeyo uusan jirin waayahay cabdi hal iyo laba arrinta dastuurka iyo waxyaabaha wargeysada ka sheegay may hal iyo laba arrinta dastuurka waxaa weeyaan headline-ka ayaa wuxuu ahaa why it can't wait any longer yani headline-ka The Standard sababta aan dib loo dhigi karin in isbedel lagu sameeyo dastuurka marka waxaad moodaa wargeyska siduu hadalka u dhigaayo nuxurka ama arinta salka oo yani waxay salka ku haysaa in isbedel in referendum la qaban doono oo ku aadan habkii loo bedeli lahaa yani qaabka dalka loo maamulo madaxweynaha wuxuu yiri cancer ayaa ku jira cancer cudurka cancerka wax la u dhigan ayaa ku jira constitutionka marka waa in cancerkaas la jaro oo meesha laga saaro tolo muxuu noqon doonaa cancerka la jari doono waa ka warsigi doonaa guud ahaan xilliga waxaa